السلامي والسود وينيا وعبد دعاء بوجا نولش عصوب أي سومالي المسيحيين تو معمولان وحندور معمود كهور الكوسيني ويسيسا إن الصود بدون نو برنامج كوسابسن عذر كان كورونا فيروس الدون كقوية اللي بعتذرهم يوسدي أنو وجتوا بالهين هذين نقطة مش وكيمي واحد سببي وحي لمدا واحد نسيد درا يدو الدنيا دا أردن دين كستا أما قارات كستا يم أما ميت كستا لها هذين أي دت كلها تعالى يعني سيدي أي عذر كان أولا وجور تيجي لهاين أو أي نف بني آدم وبد بعدين لهاين إنه ولاد الصوماليين ودب بدن دقيستان أي تلفزيون كقرن كصومالي سوفرستان أو أي فافيان ورر بينا أو كسابسن عذر كان warka beenta runtii ee ugu weyn waxa weeye in Ilaahay been ka sheegay iyaga oo ku andacooday in cudurkani uu yahay halaag ka yimi Ilaahay oo uu bini'aadamka ku halaagayo waxay kaloo ku andacoodeen in cudurkani uu Ilaahay ku halaagayo dadka ay ugu yeereen gaalada kuwaas oo ay ula jeedaan dadyooga diimaha kala haysta ama diinta aan haysanba kuwaas oo ay iyagu qalbiga ka neceb yihiin xataa waxay taageereen fikradaha ku ah bulshada Soomaaliyeed khatarta ee cudurkan inuusan ku dhicin muslimka ee uu ku dhaco dadyooga kale ee aan muslimka ahayn taasoo aynu ognahay inay been tahay si practical ama ficil ahaanna aan ugu aragnay inay dad badan oo Soomaaliya ama muslimiin ay u dhinteen cudurkaas Bible-ku kuwaas oo kale wuxuu ugu yeeraa macallimiinta beenta ama nebiyada beenta maadaama ay magaca Ilaahay sheegteen inay ku hadlayaan laakiin Ilaahay ay been ku sheegayaan waxay Ilaahay u isticmaalayaan sidii nuclear bomb ay gacanta ku haystaan oo ay dadka kale ku tuurayaan si ay ugu baaba'aan dadka gaar ahaan dadka ay iyagu markaa neceb yihiin waxa iyaga dhiirigelin ama damacooda ugu weyn waxa weeye nacayb waxa weeye dhiigdaadin iyo dhimasho waxyaalahaas oo haddaan masiixiin nahay uu ereyga Ilaahay noo sheegay meesha ay ka yimaadeen inay caddahay oo ah shaydaanka Ciise Masiix wuxuu injiilka ku yiri shaydaanku wax kale uma imaan inuu waxado oo dilo oo haleeyo mooyaane aniguse waxaan u imid inay nolosha haystaan oo ay badnaanu haystaan haddaba labada su'aalood ee isweydiinayna ugu muhiimsan waxa weeye run ahaantii Ilaahay misaas uu xun yahay Ilaahay wuxuu ku faraxsan yahay oo uu ku reereynaya oo waliba filaya inuu dadka halaago aakhirkana uu naarta ka buuxiyo mise wuxuu doonayaa sida uu ereyga Ilaahay noo sheegayo inay dadka oo dhamo badbaado oo runta gartaan su'aasha labaad ee isweydiinayna waxa weeye sida ereyga Ilaahay ku qoran kama taagna su'aali in dhibaato kasta oo adduunyadan ka jirta ama cudur ha ahaado ama aafo ha ahaado ama dagaal ha ahaado ama faqirnimo ha ahaado ama gaajo ha ahaado ay sababeen dambiga bini'aadamku laakiin su'aasha ugu muhiimsan aan isweydiinayna waxa weeye Ilaahay dambiga ma isaga ka dambeeya mise bini'aadamku iyaga ayaa doortay inay dambaabaan sidaa daraaddeed cawaaqibkii dambiga ay doorteen ka dhashay ayaa dhibaatooyinkan oo dhan u soo jeeday waa su'aalo runtii aad iyo aad u qoto dheer laakiin waxaan isku dayaynaa inaan aad u soo gaabiyo sidaa daraaddeed nala joog dhowrka daqiiqo ee soo socda haddaanu masiixiin nahay marka ugu horeysa Ilaahay waxaanu ka aaminsannahay kow inuu quduus yahay labo waxaanu ka aaminsan yahay Ilaahay inuu jacayl yahay saddex waxaanu ka aaminsan yahay Ilaahay inuu wanaagsan yahay Ilaahay waa quduus oo isagu dambi ma leh dambina uma soo dhawaan karo mana aqbalayo dambi waa sababta inuu Ilaahay u caabudno maadaama uu quduus yahay ya bini'aadan ma caabudi karno waayo bini'aadanku quduus ma laakiin Ilaahay quduusnimadiisa ayaa u qaranta inaynu caabudno ta labaad Ilaahay waa jacayl ficiladiisa oo dhan wax kasta oo uu qabto oo ku dhaqaaqo wuxuu u sameeyaa
si jacayl ama waxay ku salaysan yihiin si jacayl ilaahay wuxuu adduunka ku abuuray iyo wax kasta oo adduunka ku dhex jira oo bini'aadamku ka tirsan yahay si jacayl xasuusta sida tawreedda ku qoran buugga ugu horeeya bilowgii ilaahay markuu bini'aadamka abuuray wuxuu yidhi aan nin inoo ka samayno araggeena ingiriisku wuxuu yidhahdaa the image of God ma jirto karaamo ka weyn oo la siiyo abuuritaan uu ilaahay abuuray inta waxa dheer ee ilaahay jacaylkiisa tusaya inuu ilaahay jannada ku dhex abuuray oo uu siiyey wax kasta oo ay u baahan yihiin haddaynu sii akhrino kitaabka tawreedda buugga ugu horeeya la yidhahdo bilowgii cutubka koowaad aayadaha 26 ilaa 31 waxaa ku qoran aan nin inoo ka samayno araggeena ilaahay ayaa odhanaya oo iyagu ha xukumeen kalluunka badda iyo haadda hawada iyo xoolaha iyo dhulka oo dhan iyo waxa dhulka gurguurta oo dhan oo ilaah nin buu ka abuuray araggiisa ilaah araggiisa ayuu ka abuuray isaga lab iyo dhadig ayuu abuuray oo ilaah wuu barakeeyey iyaga oo ilaah wuxuu iyaga ku yidhi wax badan dhala oo tarma oo dhulka ka buuxsama oo ka sara mara dhulka oo xukuma kalluunka badda iyo haadda hawada iyo wax kasta oo nool oo dhulka ku korra dhaqaaqa oo ilaah wuxuu yidhi bal waxaan idin siiyey geed kasta oo yar oo idin dhala oo ku yaal dhulka dushiisa oo dhan iyo geed kasta oo weyn kaasoo midho leh oo idin dhala oo waxay idin noqon doonaan cunto oo ilaah wuxuu arkay wax kasta uu sameeyey oo bal aad bay u wanaagsanaayeen ayaa ku qoran tawreeddii wax kasta uu ilaahay sameeyey way wanaagsan yihiin ilaahay wuxuu ma sameeyay nabi daawud ayaa ka yaabay yani jacaylka iyo wanaagga uu ilaahay u hayo bini'aadamka saa u yar sida uu ku qoray sabuuradii cutubka 8 aayadaha 1 ilaa 9 rabbiyow sayidkaygiiyo magacaagu dunida oo dhan ku fiicana waayo sharaftaadii waxaad ka sarraysiisay samooyinka markaan ka u fiirsado samooyinka farahaaga lagu sameeyey iyo dayaxa iyo xidigaha aad amartay bal maxaad dadka u xasuusataa bini'aadamka iyo wiilka aadanaha oo u soo booqataa waayo waxaad isaga wax yar ka hoosaysiisay malaa'iga waxaad taaj uga dhigtay ammaan iyo murwad oo waxaad isaga ka dhigtay inuu u taliyo shuqulada gacmahaaga oo wax walbana cagihiisaad ka hoosaysiisay rabbiyow sayidkaygiiyow magacaagu dunida oo dhan ku fiicana wuxuu la fijacay wanaagga iyo naxariista iyo sarraysiinta uu bini'aadamka ilaahay siiyey sidaa daraaddeed waxaanu arkaynaa ilaahay inuu quduus yahay inuu fiican yahay ama wanaagsan yahay iyo inuu jacayl wax kasta ku sameeyo haddaba hadduu ilaahay saa quduus u yahay saa u jacayl badan yahay sidaa u wanaagsan yahay sidee ayaan adduunyada maanta aynu ugu aragnaa dhibaatooyinkaas badan ee meel kasta ka jira oo uu ka mid yahay cudurkan hadda adduunka aafeeyey sababtaas waxa weeye inuu adduunkii soo galay shar ama uu soo galay dembi dabeecadda bini'aadamka ilaahay ku abuuray waa mid cajiiba oo ka duwan abuuritaankiisa kale gaar ahaan noolaha ilaahay bini'aadamka kamuu dhigin sidii robot ama computer intuu programmeeyey wixii uu isagu maskaxdiisa ku riday uun ay ka soo baxayaan laakiin ilaahay bini'aadamka wuxuu siiyey wax la yidhaahdo free will ama doorasho isagu uu u madax bannaan yahay waa dabeecadda bini'aadamka inay leeyihiin doorasho ay ku doortaan oo ay maskaxdooda ku socdaan waxay dooran karaan inay ilaahay adeecaan waxay kaloona dooran karaan inay ilaahay ku kufriyaan ama ay adeeci waayaan haddana ilaahay bini'aadamka umuu dayn inay wax kasta ay rabaan sameeyaan ilaahay bini'aadamka wuxuu siiyey digniin markii beerta jannada la joogay ama jannada ilaahay ku abuuray digniin buu siiyey wuxuu uga digay inay barakoobi doonaan haddii ay isaga adeecaan oo ay xidhiir fiican la samaystaan haddiise ay dambaabaan inay dhiman doonaan waxaa mar kale aan ka akrinaynaa tawreeddii kitaabka ugu horeeya bilowgii cutubka 2 aayadaha 16 ilaa 17 waxaanu ka akrinaynaa mar labaad rabbiga ilaahuna wuxuu ninkii ku amray isagoo leh geed kasta oo beerta ku yaal waxbaad ka cuni kartaa laakiinse geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waa inaadan waxba ka cunin waayo maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa
ereyga waxa weeye waad dhiman doontaan macno weyn baa ku jira laba siyoodba way noqotay bini aadamku ruuxiyan buu u dhintay spiritual death baa la yidhahdaa ruuxiyan wuxuu ugu dhintay xiriirkii ilaahay iyo isaga ka dhexeeyey ayaa jarmay oo meeshuu ilaahay ka adeeci lahaa shaydaan buu doortay ta labaad bini aadamku jannada intuu ku jiray ee aanu dembiga lahayn dhimasho ma jirin laakiin maadaama uu dambaabay oo laga soo saaray jannadii bini aadamkii waxaa ku timid dhimasho dhimashadaas oo ay keentay dembigiisa cudurraa yimi nacayb baa yimi waad xasuusataan yani intaan meelba la gaarin labadii ugu horreeyay ay aadan iyo xaawo dhaleen inay isdileen waad xasuusataan dagaal baa yimi aafooyin kale ayaa dhashay dembigii na kuma ekaan xaawo iyo aadan kuma ekaan miyuu ku ekaaday may haddii kale labadooda keliya ayaa jannada laga soo saari lahaa bini aadamka kalena waa loo dayn lahaa ay dhaleen laakiin wuxuu saameeyey bini aadamka oo dhan waxaa ereyga ilaahay ku qoran dhammaan way wada dambaabeen oo gaari waayeen ammaanta ilaahay ma jiro bini aadam maanta odhan karaa anigu dembi ma lihi sidaa daraaddeed bini aadamku wuxuu maanta u silcayaa dembigii ay iyagu ku doorteen inay si xor ah xorriyaddii ilaahay siiyey inay ku galaan dembigaas waxaa ka dhashay cawaaqibka maanta adduunka ka jira waa dembiga bini aadamka ma aha dembi uu ilaahay keenay ama iyaga geliyey ama iyaga la rabo ereyga ilaahay waxaa ku qoran haddaba sida dembigu nin keliya dunida ugu soo galay dhimashaduna dembiga uga timi sidaasaa dhimashadiina u gaadhay dadka oo dhan waayo waa la wada dambaabay sidaa daraaddeed dhibaato kasta oo adduunka ka jirta maanta cudurow dagaalow waxay ku yimaadeen doorashada xortaa ee bini aadamku uu ku doortay inuusan ilaahay adeecin laakiinse uu dambaabo dembigiina uu sii tarmay wuxuu saameeyey abuuritaanka ilaahay ee kale ha noqdeen biicad ha noqdeen wax kasta oo ilaahay abuuray ayay saameeyeen laakiinse walaalayaal xasuusta iyadoo bini aadamkii sidaas u dambaabayo ilaahay uga cararayo waxaynu ognahay ilaahay inuu jacayl yahay inuu quduus yahay inuu wanaagsan yahay bini aadamkii saas kagama hadhin laakiinse wuxuu intaa uu ka daba ordiyey waa sababta uu intaasoo nebi ugu soo diray si ay bini aadamka ugu sheegaan ilaahay taariikhda bini aadamka marka dib loo raaco ilaahay wuxuu doonayaa inuu bini aadamka badbaadiyo wuxuu doonayaa inay isaga xidhiir fiican la yeeshaan wuxuu doonayaa inuu noqdo ilaahooda iyaguna ay noqdaan dadkiisa ereyga ilaahay waxaa ku qoran kitaabka nebi yaxsqeel nebiyadii hore ee israa'iil loo soo diray weeye waxaa ku qoran cutubka 3 aayadda 11 sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay noloshaydaan ku dhaartee inaanan innaba farxad ka helin dhimashada sharrowga laakiinse waxaan jecelahay in sharrowgu uu jidkiisa ka soo noqdo oo uu noolaado kitaabka nebiga rabbiga ayaa isna waxaa ku qoran cutubka 29 aayadda 11 rabbigu wuxuu leeyahay anigu waan garanayaa fikirada aan idinku fikiro waa fikirro nabadeed ee ma aha kuwa masiibo si aan ugu dambaystiinna rajo idin siiyo adduunka walaalayaal maanta waxaynu ku aragnaa dembiyo aada u xunxun oo ka dhacaya xasuuq dad shaydaanka caabudaya dad magaranaya saayay si kasta ilaahay uga dheeraaday muxuu ilaahay u xukumi waayay yani kuwa ay wadaadada noocan oo kale ee soomaalida oo kale waxay jecel yihiin dadkaas oo dhan in hal mar la hagaago iyaga keliya hadhaan laakiin de ilaahay sheegayaan ilaah noocaasa ma aha ilaahay dembiga uu xukumi doonaa laakiin muxuu bini aadamka ugu seeto dheeraynayaa ma xukunkiisu ka raagayaa maya ereyga ilaahay wuxuu odhanayaa rabbigu kama raago inuu ballankiisa oofiyo ballankiisa xukunkaa dadka qaarkiis sida uu ku tiriyo inay raagi tahay laakiinse idinku idin dul qaadanayaa oo dooni maayo inuu qofna halagmo laakiinse wuxuu doonayaa in kulli la wada toobad keeno ayaa jiilku ku qoran ilaahay ma doonayo inuu naarta buuxiyo kuma farxayo inuu bini aadamka cudur ku rido ya inuu haago laakiinse wuxuu doonayaa inuu mid kasta uu badbaado oo isaga usoo noqdo oo xidhiir xidhiir fiican la yeesho injiilku wuxuu ilaahay ku misaalay
sidii aabe uu wiilkiisii ka caasiyoobay oo ka tegey laakiin aabbihii jacaylka wiilkiisa u hayay muu ilaawin gurigiisa hortiisuu taagan yahay oo mar kasta wuxuu eegayaa bal inuu soo socdo markuu arkay isagoo meel fog ka soo socdana isagoo farxadaysan ayuu ordayaa oo uu hab siinayaa oo uu soo dhaweynayaa oo uu jacayl iyo wanaag tusayaa sidaas oo kale ayuu ilaahay bini aadamka u sugayaa inay toobad keenaan oo u jecelyaa inay toobad keenaan oo waqti u siinayaa inay toobad keenaan haddaba walaal ilaahan sidan u wanaagsan goorma ayuu qofku garanayaa waa marka uu ciise masiix aaminsan yahay wey waxaynu ka hadlaynaa maaha ciise masiixa meelo kale lagu qoray ee lasoo dhegadhegeeyey waxaanu ka hadlaynaa ciise masiixa ku qoran injiilka ee runta ciise masiix wuxuu yidhi anigu waxaan ahay jidka runta iyo nolosha nina aabbaha uma yimaado ama nina ilaahay uma yimaado xaggaygu ku yimaado mooyaane waxaan ka hadlayaa walaal waa ilaaha runtaa wey ee quduuska ee jacaylka iyo wanaagga miidhana ma aha ilaah aan aniga idinla hadlaya ama wadaad yar oo xamar jooga oo aan ilaaha runtaa iyo bini aadamnimo midna aqoon oo badar ka soo dhirgay uu jeefka ku ridan karo oo dadka ku karbaashi karo ma aha ilaah noocaasa waxaan ka hadlayaa walaalayaal waa ereyga ilaahay ee runtaa ma aha wax jacbur aan meel loo raaca lahayn haddaba walaalayaal waxaan ka baryayaa ilaahay inuu soomaalida ka badbaadiyo cudurkan xun ee adduunka ku faafaya waxaan soomaalida ku gubaabinayaa inaanay dhegaystan macallimiinta beenta ee nacaybka iyo misinformationka siinaya laakiinse ay meel kasta ay joogaan ka qayb qaataan dadaalada loogu jiro in naf bini aadan la badbaadiyo iyadoo aan loo eegayn qabiilka iyadoo aan loo eegayn diinta haysato iyadoo aan loo eegayn midabka ay leedahay waxaan ku gubaabinayaa inay raacaan tusaalaha fiican ee dowladda soomaaliya samaystay maalin weyto oo iyadoo aynu taagteeda ognahay ay 20 dictor u digtay waddanka talyaaniga taas oo runtii tusaale fiican oo qofka Soomaaliga maanta ka dhigaysa mid isla weynaan iyo u keenaysa waad mahadsantihiin inaad nala joogteen su'aalaha noo soo qora ay iyo habaar iyo waxaas waxba tari maayaan idinku bay ceeb tahay su'aalo caqli gala oo waxyaalaha aan ka hadalno ku saabsan noo soo qora anaguna waa idinka soo jawaabi doonaa inta ay nabadgelyo